وأنا حالي داوني مصبيحي وتيفي كهلايا نبغى علولي ما تيجي عند ذي أيه ولا بقراري موصل وكهلاي حسبي وطني أو كونفور أي سركان صورنا وين نقارن هو سكان كان موسى واحد ما أنت إنك يارين تاك هاد لا مو هين وأنا كم عنك أقول بحي برجي فترة كي على شيء يا كأخير يلي أنا أقول حدير كرت العقد الماي موسى مركي غير كان كالعكس كلاي ميدان كالسياسي ده يسوي مثلا وحي كان نقطة إنه كونفرس هذا القاضي على هاي سوكي هورين هورين ولا يحبك الجارين ولا بدحلين نبغى الدنيا ما تعيد موسى سوى علينا يو أنا هذه هذول يابني هذه لهي قاعد ليه وعوي لبلا برنامج أبدا قلبي أنك هالليا وحي من الوقت حالي ميديا ولا تاجنا مصبيح عبدي مصبيح عبدي وحبارو لنا نبوية لا مركب وجوه الرئيس ما بتشتر نوع أنا مع بيش في لها عبدي البي نوعك كدونيو وحكو يركل فيه وحيابها مرمرانية ملع عضاد يضد كسبة يا كل فيه وحيابه وحالي كهلاي والرئيس البرلمان كي جمهورية الصومال لان وسري مدحوين الله تيتلها يا قدومية محكمة السرايا وحال لها حسبي كل مية ضرب محكمة دولة تيكسر شرع قالوا تيكسرنا waxaan u maleynayaa yacni waxyaabaha ee qaladaadka waddanka ka jiray waxyaabaha dadku aan u fiirsanayeen bay ka mid tahay isagoo yacni deer dhaladoo maalintii dhawatay systemkii wax loogu wareejiyay macaanganaya madaxweyne siirayo uu ku mahadsanaa weliba inuu kii madaxa u geliyo inuu isma ogeyn ayuu yacni ku hanjabaya haddana ra-iisul baarlamaanka maxkamadda la tiigsanaya waa ree aad u fool xun fili haddii la daawado horaa loogu 22 sanadood baa ka soo wareegay waqtigu muuse lahaa calanka ka taagay mis jaamaca agteeda maanta reeru ciidan meel u jooga ma jirto oo leeyahay Malaysia ka dambeysay barnaamij noocaas ninka Somaliland dadka eeganaya lagu laayay 7,000 qof laga dilay war reerka garxajis leeyahay Soomaaliya doonaya ahad Soomaaliya soo hadal qaadi kara maca shirka Turkiga cid soo hadal qaada anagu nimanka eeganaya ma wax kale badaayo nin Somaliland iyo federaal buu doonaya waxa harsanaatay ninka soo hadal qaada annaka ba eeganayno 7,000 nin baan naga maqan 3 sanood 29 bilood ayuu Muuse Biixi ku hor joogay inuu Hargeysa ka ilaaliyo dadka wuxuu ahaa taliya wasiirka amniga iyo taliya guud ee ciidamada qaranka ee Somaliland ayuu Muuse Biixi Cabdi ahaa reerku imaka abtisado kamu daba tagay sida ragga barkii ka daba tagay in kaahin iyo Ibrahim Dhagaweyne iyo shirar badan bay qabtay nabad dib wadanka ugu dhacday waana ku guursaday Cabdullaahi Darawaliyo isaga wax abaalo u yaala ma jiro markuu aadmu waxa loo nooliyay wax weeyaan waa taariikh iyo waqti la soo maray baa soo noqda hadiya jeer 7 casho sabti iyo axad baa ku jira iyo isniin 7 days kaasi way soo noqdaan oo wiig waliba wuxuu leeyahay sabti wiig waliba isniin buu leeyahay adduunyadana adii aynaan binaadamku aan taariikhda dib u raacin oo aan wax laga fikirin wax jira la noqon maayo xoolaha la mid noqonay waxaanu ka hadlaynaa maanta waxaan dhacaya ama hadalladan dhiifta lee soconaya waxay weegi wixii aynu waqti hore soo maray ama haday noqoto arinta nabadgelyo darrada ah ee la sameeynayo dadkan la target gareynayo ee la bureynayo waxyaabaha soconaya waxay weegihiin waqtiyada qaar kood wixina soo maray waxaynu u baahanahay inaynu bulshada ka dhaadhicino aynu u sheegno in dadkan ay u baahan yihiin nabadgelyo u baahanahay nabadgelyadana cidna laga bari maayo nabadgelyo dadku u baahan yahay waxa la doonayaa nabad in lagu wada noolaado baan kula doorashadu ay nabadgelyo inoogu dhacdo waxa la doonayaa in hadalkan dhiifta la shubayo iyo waxyaabahan la isku xoqayo iyo waxaan hore inoo soo maray inaan lagu celcelin waxay u egtahay maanta in caroog la garaacayo in dalkan dagaal sukeeyo ka dhaco wax suurta galiyana ma dadkuna way ka korran yihiin waxa maanta bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa inaan halkan federaal laga dhawaaqi karin Somaliland qof diidanina tan aanu dhex joogi karin baan ayaa dadka u sheegayna ninka waxa siyaasad ka dhiganaya isaga u taala cid iyadu political ka dhiganaysa iyadu u taala siyaasad ka dhiganaysa haddii Soomaali la kulmayo laga hadlayo dee Turkiga ama madaxweynayaashu ku kulmayaano waxa laga wada hadlayaa dee waa heshiis iyo la wada gelayo Somaliland iyo Soomaaliya si wada noolaan baa ayaa laga fikiray qofkii qof isla taagay iyo sawir been abuur iyo verification hadii la sameeyana dibteedii iyo ceebteedii leed marka waxaan leeyahay si xaraga leh loo dagaalamo si xaraga leh loo wada hadlo yani waxaan la sheegayaa waa la doogayaan la dacaroon
si gobonnimo leh in loo tartamaabaa qurux badan oo aan dhiif lahayn ayaa qurux badan maanta qofka isagu siyaasad ka dhiganaya ama reernimo ama tolaayay dee isagay u taalaabaan ku reernimo waxba lagu heli maayo ninka reernimo wadani ku caroogaana waxba ku heli maayo reernimo meel ku gaarsiin mayso ninka kulmiye maanta reernimo wax ku abaabulayaan isna meel ku gaari maayo waxaynu u baahannahay in meel looga soo wada jeedo nabadgelyada waa haddii la doonayo Soomaaliland inay sii jirto